أنا كاستي أكون الدنيا نقول كذا وحولي هي أستان أجارتها أو موجنة هالك أو كسر جيد هذا الشهان ما أنت والله بيت ومن كأكتوبر أي كوب أنت هاي لحدني كوبوري كسر وريكتي مالتي لصوبان دقي أستان تا أما صمد الصومالي ده الدنيا ده أو أي هاي على كبلوج تكتعب شنت جيس لحد كلها haddaba waxaan eegi doonaa bulshada Soomaaliyeed ee ku nool magaaladani Maalmo ee caasimadda saddexaad ee dalka Sweden dareenkooda ku aadan maalintan aadka ugu weyn ah waa gartay sidee u dareensi kartaa bulshadan kula nool inay maanta maalinta ugu weyn oo maalintii afraadka Soomaaliyeed la soo bandhigay ay tahay sidee ku dareensiin waa inaan xaflad u dhigno maalintan soo kala xasuus oo naga mudan aad iyo aad oo taageerno waa dadka macal ciyaalkeena oo fahansiino inay maalin qiimo aad iyo aad u weyn leedahay sidee ugu baraarugsan shacabka Soomaaliyeed maanta oo kale aragtida kulan aad iyo aad inaan qabanno way oo qasab ah oo dadka Sweden qaasatan magaalada saddexaad ee Maalmo wixii jooga dhalinyarada odayaasha shacabka diinta kullina isku wada sheegno way maalintii weyn oo maalintii afraadka Soomaaliyeed la soo bandhigay ay tahay sidee ku dareensiin waa inaan xaflad u dhigno maalintan soo kala xasuus oo naga mudan aad iyo aad oo taageerno waa dadka macal ciyaalkeena oo fahansiino inay maalin qiimo aad iyo aad u weyn leedahay sidee ugu baraarugsan shacabka Soomaaliyeed maanta oo kale aragtida kulan aad iyo aad inaan qabanno way oo qasab ah oo dadka Sweden qaasatan magaalada saddexaad ee Maalmo wixii jooga dhalinyarada odayaasha shacabka diinta kullina isku wada sheegno way maanta horta waa maalin qaali ah maxaa yeelay waa maalintii calankeena kor loo dhigay oo la qaaday Soomaalidana ma xasuustaan 12 Oktoobar waxay koogu luuliya maalmo kale xasuustaan laakiin ani ahaanteyda intaan sheeko ugu maqlay oo abi Allah u naxariisto iga sheekay jiray inay maalinta ugu qaalisan oo Soomaali hadaan nahnay maalinta aan calankeena aan hawada sare aan kaloolna wallahi maanta farxadda aan dareemayo xataa ma aragtay maalinta dhalashadeeda maanta iga qaalisan because ma maalintii calankan oo ma aragtay dhiig badan loo soo daadiyay waa maalinta aan qaadno waay dareenkayga maanta hadaan sheego ma baqayaasi karin maya boqolkiiba 99 waxaan dhihi karaa koogu luuliya markay maqlaan Soomaalida oo dhan waxaan u maleeyaa koogu luuliya inay tahay oo wax kala ba jirin laakiin maba ogaba inay 12 Oktoobar inay maalinta ugu qaalisan ee Soomaali ay isku duubmatay oo calanka la babiyay inay tahay anigu maalintaas been ku sheegay ma calanka maba dhigabo maxaa yeelay sidaan aan u walfiyaa anigu ahaan hadee ummadda Soomaaliyeed ay macnaha ay tala wala isku leeyahay wixii wanaagsan wala iska qaataa dad iga waaweyn oo iga aqoonsan oo Soomaalina ogna waa jirtaa laakiin waxa u maleeysaa inay arinta ka jiifaan waxaan leeyahay arintan yaa laga jiifan waa maalin qaali alla kaco sidaas aan leeyahay ee alla isku duubtay alla ogaado maalinta calanka kor loo taagay korna aan wada dhigna insha Allah ani kaliya ma ay Soomaalidu waxay ku xusuustaan inay tahay maalintii calankan la sameeyay dareenkay waa aad buu fiican yahay maadaama uu calankan hadda jirsaday konton iyo konton lixmiya aad uma yaqaanaa waa fiicnaan lahayd in dadka la baro waa fiicnaan lahayd weliba meelaha lagu bari karo wax kamid iskuulaadka ciyaalka carruurta iskuulka dhigata oo kale in la baro oo maalintaasoo kale ay calanka sawiraan ogaadaan xidigtaasna inay tilmaamayso maxaa la shanta Soomaaliyeed بسم الله الرحمن الرحيم horta marka hore hadaan kaaga waramo shakhsi ahaantayda waxaan ahay jaaliyada gudoomiyeeda qaybta Maalmo maalinta calanka waxaan ku xasuustaa calankan buluuga ah ee Soomaaliyeed waa maalintii la isku afgartay in calan buluug noocan oo kala aan sameysano astaan noo qaas ah Soomaali hadaan nahay marka waa xasuusta kaliya no imo qatamaantu inuu yahay maalintii calanka la sameeyay noo astaanta wallahi aad baan ugu faraxsanahay waxaan jeclaan lahaa in wadankaygii dadkaygii oo waliba calankaygii oo aad qiimo u siilay oo dagaalka sokeeye ka baxay oo sidii hore loo ogaa in calankaygii sharaftiisii oo dib u soo laabto haddana dadka waxaan ku baraarujinayaa da'dayda iyo kuwa iga yaryarba inay calankaas ogaadaan waqtiga munaasabka ku ah iyo waqtiga 12 Oktoobar inuu tahay maalintii calanka Soomaaliyeed la isku afgartay aadaan ugu faraxsanahay in maanta la i wareysto arintan ku saabsan calanka arrimahiisa ugu dambeyntii 12 Oktoobar 1954 oo ahayd maalintii la soo bandhigay calanka buluuga ah xidigta cad dhaxda ku leh ayaan bulshada Soomaaliyeed si weyn ugu baraarugsanayn Amdi Fataax Nuur Dami Somali Cable TV عاصمة saddexaad ee dalka Sweden
maalmo